Dadweynihii koowaad ay isugu yimaadaan qurbajoogta u dhashay gobolka Togdheer iyo dawladda hoose degmada Burco ayaa waxa uu ka dhacay Hotel City Palace ee magaalada Burco waxaana shirweynaha suurtageliyay dawladda hoose ee degmada Burco kaashanaysa shirkadaha Telesom bangiga Salaama iyo shirkadda dhismayaasha Burco Construction Company. Shirweynahan ayaa waxa lagaga arrinsanayay sidii qurbajoogta u dhashay gobolka Togdheer ay u maalgashan lahaayeen gobolka Togdheer. Waxaana shirweynahan ka soo qayb galay xildhibaan Cali Mareexaan oo kamid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka ee Somaliland maamulka gobolka ka degmada aad u tiro badan. ugu horeyn shirweynaha waxa ka hadlay xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidi oo isagu lahaa fikirka qabanqaabada shirkani waxaana uu yiri oo shirkan ay fikirkiisu ka yimid golihii deegaanka cusbaan oo ka kooban 22 xubnood oo ay ka mid yihiin maayarka iyo maayar ku-xigeenka ayaa fikirkani runtii ka yimid laga yaabo anigu inaan fikirkan anigu aan ahayn qurbajoog iyo ayaanagu maaragtay kulan isugu dhamaadno. sidoo kale waxaa kulankani ka hadlay maayirka degmada Burco xildhibaan Cali Mareexaan oo kamid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka ee Somaliland. xildhibaanka labada saaxiib ka dhexeeyay Mubaarak xildhibaanka fikirkan isaga ahaa soo jeediyay qurbajoog la safo ka daawad maadaama anagu aan howl gacanta ku hayo idinkuna dibadda naga joogtaan waxaa lagama maarmaana in wax badan nala saxda salaan kadib waxaan marka ugu horeysa halkan uga mahad celinayaa golaha deegaanka Burco xilliga fasaxyada dadka boqoba yimaadaan in la isu yimaado oo la is wareysto oo waliba hargeysa way ka dhacdaa dhowr jeer oo caasimadda way ka dhacdaa laakiin in dhawaa gobole reer Togdheerna ay isu yimaadaan ayagoo is wareystaan inoo soo qabanqaabiyo aad iyo aad baan uga mahad celinayaa aad baan ugu baahnaa jazakumullahu khayr. sidoo kale waxaa kulankani ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday shirkadaha Telesom bangiga Salaama iyo shirkadda dhismaha Burco Construction Company waxaanay dhammaantoodba u hambaliyeen qurbajoogta gobolka Togdheer iyagoo ku ammaanay inay kaalin mugle ka qaateen horumarka gobolka. ugu dambeyntii waxaa shirkaasi qodobo laga soo saaray ku dhawaaqay xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi. qodobka koowaad waxaynu isla qaadanay oo in la qabto inuu muhiim yahay ama in la qabto shirweynaha qurbajoogta gobolka Togdheer si joogta loo qabto sanad kasta. qodobkaasi wuxuu noqday mid muhiima sanadka dambe haddii laga ka dhigo 27 Julaay 2015 haddii laga ka dhigo in ay shirka dambe isugu nimaadno. waxay isla qaadanay haddana golaha deegaanka oo arkayseen maayarka iyo ku-xigeenkii isla qaadanay iyo xildhibaan cabdisaaq qaaroo isna halkan fadhiya oo xildhibaanka loogu daayana in dawladda hoose ay soo dhaweynayso qurbajoogta gobolka Togdheer iyo guud ahaanba qurbajoogta reer Somaliland ee raba inay halkan degaan gobolka Togdheer isla markaana raba inay maal gashadaan inaanu ciddii u baahato dhul filiya inaanu siin doono cashuur dhaaf u samayn doono. waxaa in badan laga hadlay oo la isweydiiyey oo aad warbaahintan ku arkayseen xubno badanna ayna weydiiyeen in madaarkii magaalada Burco uu xidhan yahay qurbajoog fara badan ay ka soo degaan oo ay Hargeysa qaarkoodna waqtigoodii fasaxa oo ka dhamaaday Hargeysa. waxaan isla gartay qurbajoogii iyo annaga in uu muhiim yahay madaarka Burco ka afraad maadaama uu joogo halkan maadaama aynu ognahay in Somaliland Somaliland dhulka intiisii badnayd uu jiro bari naga jiro wadadii Ceelgaabo iyo Togdheer oo ay muhiim tahay in la dhiso. waxaan qodobka afraad u qaadanay oo baa u jeedinaa qurbajoogta Togdheer iyo Somalilandba in laga qayb qaato wadada isku xidhi doonta Togdheer iyo Ceelgaabo.